qoyska haweeney Soomaaliyeed oo lagu dilay dalka Masar sanadii 2016 ayaa soo dhaweeyay xukunka maxkamadda dambiyada gobolka Giza oo ay ku rideen Masaari ah oo horey u dilay hooyo Soomaaliyeed oo qaxooti ku ahayd wadankani Masar. Maxkamadda ayaa 7 sano oo xabsi ah ku xukuntay Jibriil Qasaal oo ah ninka geystay dilka Xamdan Maxamuud Xasan kadib markii dacwada maxkamadda ay socotay muddo ka badan 2 sanadood. qoyskan Soomaaliyeed oo aan booqanay ayaa inoo sheegay in safaaradda iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ay gacan weyn ka geysteen sidii cadaaladda loo marsiin lahaa dambiilaha marxuumada dilay. Saciid Geedi oo ah aabaha caruurtan hooyadooda lagu dilay dalkani Masar ayaa inooga warmay sida uu u arko qaraarka maxkamadda Giza. maxkamadda Giza waxay ku xukuntay ninkii 7 sano oo xarig ah iyo 2 sano iyo bar oo hore u soo qaatay. waan ku faraxsanahay aad iyo aad ninka ilmeyga xaaskayga oo dilay oo haddana maxkamadda Giza ay noogu xukuntay 7 sano 2 sano iyo barna hore u soo cunay. marka alxamdulillah hadda natiijo fiican aan ka gaarnay. hadda maxkamadda waxay noo ballan qaaday maqdhow inaadan siinayna dhahday oo nusay noqon doonto lama ogin aan ku balansan hadii Ilaahay yiraahdo. aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. arrintaas waxa gacan ka geystay aad iyo aad aga geystay ilmaha abtigooda oo la dhahayo Cabdiqani Warsamo iyo habaryarahooda aad iyo aad gacan aga geystay oo garabkayga taagnaa iyo safaaradda iyo jaaliyadda Soomaaliyeed oo si xoog iyo aad garab ii siisay 24 saac waqti kasta loo yeelan garabkayga taagneed wax kastana igu garab taagneed ilmaha waxbarashadooda maxkamadaha dacwooyinka aad iyo aad garab iigu siiyeen iyagana waa u hambal celinaya walaalahayga. dhinaca kale qaar ka mid ah 4 caruur oo ay ka tagtay Xamdan Maxamuud Xasan ayaa iyagana weydiinay dareenkooda ku aadan dilka hooyadood iyo go'aanka maxkamadda. wallahi ana magacayga Amal Saciid Geedi aadan maganaan idhaha. wallahi horta dareenkayga maanta hadaa dhaho 2 sano bar qaahira ku noolnahay hooyo la'aan aan nagu dhacday. inkastoo saas taana alxamdulillah ala kulli ahwaal kulli nafsin daa'iqatul maut ana ka dhan qabrigaan sugaayo qof adduunkan ku sii haraayo male. ninkana maxay hooyaday dilay alxamdulillah wuu noo xiran yahay. insha Allah anagana rajo fiican sugi doonaa. ilaaha masartaana naga bixiyo ilmihii hooyadooda ka tagtan ilaaha naga dhigo. maxamed Saciid Geedi aadan maganaali dhahaa. waxa ku faraxsanahay go'aanka oo maxkamadda ee dhahday ninka 7 sano ku xukuntay alxamdulillah qadiyadana way noo dhamaatay. Saara Maxamed Cali oo gacanta ku haysa caruurtan Soomaaliyeed isla markaasina faahfaahin ka bixinaysa xaaladda caruurtan ayaa baaq u dirtay ummadda Soomaaliyeed. ilmaha hadda way dhibaataysan yihiin gurma haystaan hooy ma haystaan al'aan aniga ayaa hayo wax oo hadda oo soo saaciday ama wax ugu soo qabtana ma aan arkin. wixii oo caalinka oo wax u qaban karo waa inay u qabtaan oo ilmaha sirarka saacidaya. maalweyn waxaan u baaqayaa ilmahaas oo hooyadooda la dilay Allah ya raxmar raxiin waa inay wax u qaban karaan ee u qabtaan. sanadkii 2016 ayay ahayd markii hooyo Soomaaliyeed marxuumad Xamdan Maxamuud Xasan lagu dilay magaalada Giza ee wadanka Masar, taasi oo ay si weyn uga caroodeen Soomaalida ku nool Masar iyo dadka Masaarida ah ee ku dhaqan magaaladan Giza. Cabdiqaadir Maxamed, Galer Media.